بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داود يالكسو دوادا برنامجka falanqaynta telefishinka qaranka Soomaaliya oo xiliyadan oo kale idin kaaga yimaado studio TV-gu uu ku leeyahay magaalada London ee xarunta wadanka Ingiriiska. barnaamijka falanqaynta haddii alla idmo waxaynu ku eegi doonaa toddobaadkan horaantiisa magaalada London waxa soo gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Nuur Faarax Xirsi. wasiirka iyo wafdigiisa waxa ay shirar uga qayb galeen magaalada London ee xarunta wadanka Ingiriiska. waxaan barnaamijka ku eegi doonaa haddii alla idmo waxyaabihii shirarkaasi ay ku saabsanaayeen iyo guud ahaan socdaalka wasiirka. waxaa sidoo kale aan barnaamijka ku eegi doonaa waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha badda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inta uu joogay wasiirka stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya ee magaalada London ayuu imika nala jooga. dadweynaha Soomaaliyeed ee na daawanayana waxa ay wasiirka gaadiidka ay soo weydiin karaan su'aalo la xiriira mowduuca aynu ka hadlayno oo ku saabsan shirka wasiirka halkan uu joogo iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsoomay muddadii dhowrka bilood ee wasiirku uu xilkaayay. waxaan jecelahay inaan barnaamijka toos u guda galno. marka ugu horeysa wasiir Nuur ku soo dhawow SNTV xaruntiisa magaalada London. aad baa mahadsantiin TV-ga qaranka iyo howlwadeenadiisa magaalada London waana ku dhawahay aadna waad mahadsantiin. waayahay ugu horeyn bal waxaad faahfaahin naga siisaa socdaalkaaga magaalada London wax uu la xiriiray. runtii socdaalkayga magaalada London waxaa socdaal hawleed oo caadi ah sida aad ogtahay jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxaa jirta hay'ad badaha iyo arrimaha la xiriira uga mas'uul oo la yiraahdo IMO ama International Maritime Organization kaas oo ay xaruntiisu tahay magaalada London. marka waqtigan waxay ahayd xilligii la qaban jiray shirkooda caadiga ah ee ay isugu yimaadaan jimciyadooda caamka ama General Assembly-ga hay'adaas iyada shirkaas ayaa wuxuu ka furmay magaalada London 23 bishan inuu ku jiro. waxaanu socon doonaa isagoo 23 furmay ilaa iyo bisha dambe labadeeda. waa shir aad u culus laguna xiriiro runtii mawaadiicda lagu lafagurayo arrimaha badaha iyo runtii dawladaha iyo mashaakilaadka jira si weyn loogu lafaguro. marka socdaalkaygu aanu halkan ku nimi aniga iyo xubnaha kale wafdiga la socdaaba wuxuu daaranaa ama runtii ujeedadiisu ahayd in aanu ka qayb galno shirkaas oo aanu kaga qayb galno anagoo ku matalayna Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waayahay haddii aan ku weydiiyo ka Soomaali ahaan iyo ka dawladda federaalka adigoo ah wasiirkii gaadiidka maxaad la hortagteen shirkaas ama aad doonaysaan inaad hordhigtaan weli maadaama uu socdo? runtii sida aynu ognahayba shirkan ka hor dawladda Soomaaliya maanta runtii waa ogtiinoo in badan way ka maqnayd intii Soomaalidu ay ku jirtay dagaalada iyo fawdada iyo dhibaatada ay ka socotay. waxay ka maqnayd meelihii maxaafisha caalamiga ahaa iyo meelihii runtii dunidu ay isugu imanaysay. dawladda Soomaaliyeed weligeed in badan xubin bay ka ahayd ururkan la yiraahdo IMO ama hay'adda badaha adduunka ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa. laakiin waxay ka maqnayd muddo 18 sano ah kamay soo qayb galin runtii shirarka IMO ay leedahay. marka waa markii ugu horeysay runtii ay dawladda Soomaaliya si buuxda uga soo qayb gashay shirkan. sidaynu ognahayna duruufo badan baa runtii ku xeeran xubinnimada dawladda Soomaaliyeed ee ururkan IMO. ururkan runtii waxaa ku bahoobay wadamada inta badan leh bado iyo runtii wixii la xiriira runtii waana meel lagu ilaaliyo ama lagu difaaco runtii danaha ay ummad kasta leedahay dhinaca badaha ama runtii lagu difaaco. marka xuquuq badanna lagu ilaashado. laakiin runtii duruufo badan baa ku xeersanaa maado badan in badan ay ka maqnayd dawladda Soomaaliyeed. marka waxaanu markan garanay inaanu runtii aanu ka qayb galno dabeetana bal dib wax meesha yaalay runtii waxa Soomaali laga rabo iyo waxa ku xiran runtii aanu xoogaa uga noqono. runtiina si fiican baynu ugu suura gashay 23 bishii furitaankiisa waan joognay. iminkana maalintii saddexaad buu socdaa. waxaanu sii socon doonaa ilaa bisha labadeeda insha Allah waanu dhamaysan doonaa. waxyaabo badan baa runtii aanu kala kulanay oo waxyaabaha runtii ka jira waxa kamid ah caqabado waaweyn way kamid tahay 18 sano ugu dambeeyay dawladda Soomaaliyeed may bixin
wixii ururku uu yani waxaan ay dowlad waliba ay xubin waxbay bixisaa sanadkii walba lacag bay bixisaa go-an marka waxaa isku biiray runtii 18 sano oo aanay dowladda Soomaaliyeed bixin wixii ay ahayd inay bixisay kharash runtii ururka ay siin jirtay ta ugu weyn runtii u nimi waxay ahayd inaan taa ka hadallo shalayto ayaa iyo dorhad labadaba runtii fursad fiican baan u helay oo laga siiyay shirka waxaanu bandhignay runtii duruufta ay ku jirto maadaama dowladda Soomaaliyeed imika ay kasoo joogtay dagaal iyo colaad sokeeye oo runtii muddo badan socday inaanu garowsiino runtii bulshada caalamku inay aqoonsato ama ay garato in wixii ku biireyntaas oo ay ka maqnayd golahan IMO-da in laga daayo si wanaagsan runtiina shalayto haddii meediyaha kala socoteen shirkaas oo adduunyada inta badan ay isugu timi dooda Soomaaliya waxay ahayd doodii ugu adkayd ee shalayto runtii golaha taalay waxay u eekayd runtii inay noqoto dood adag oo runtii dowladaha ururka ku jira ay ku qaybsamaan dowladda Soomaaliyeedna ay mowqifkeeda cadeyso oo ay tiraahdo waxaanu codsanaynaa maadaama 18 sano aanan ka helin ama intii dowladda dhexe Soomaaliya ay burburtayba dowladda Soomaaliyeed markay waxa waajibka ku ah lacagta bixinayso ama dowlad kasta xubiniba waxaana yeelanaysaa xuquuqna way yeelanaysaa waa sax 18 sano dowladda Soomaaliyeed aanay bixin wixii waajib loogu haray in bixiso laakiin taa dhinaceeda waxa socota 18 sano wixii ay xuquuq lahayd ma helin oo ururka IMO kama helin sidaa daraadeed waxaan codsanay oo aanu keenay shirka codsi ah 18 sano wixii nagu biiray in runtii laga daayo dowladda Soomaaliyeed hadda iyo sanadkan soo socdana ay kaalinteedii si fiican u buuxiso oo ay bixiso wixii runtii laga rabay inay bixiso xubin waliba runtii dood adag baa ka dhacday mana dhicin runtii meeshan sharci baa yaallo runtii hay-adan ay iska leedahay oo ah xeerarkeeda waxaa ka mid ah in haddii aanad bixin wixii kugu waajibka ahaa inaad bixisay hanti ahaa inaad xuquuq ku yeelan shirarka waad iman kartaa laakiin masalan inaad xaqa codka kale ku yeelan inaad xaqa waxa weeyaan wax badan runtii inay kaa xisabtaa arrintaasi uu ku diido adigu shaayto runtii gabagabadii waxay noqotay xeerkana waxa uu dhigayaa inaan marnaba la dhaafi karin lacagta lagu leeyahay xubin ka mid a ururkaas laakiin shalayto dood adag markii aanu bandhignay duruufta dowladda Soomaaliyeed ay ku jirto adduunyada in badan oo ka mid inay ka markhaati kacday oo yidhahdeen Soomaaliya xaq bay u leedahay maadaama 18 sano ay ka maqnayd golahan oo aanay wax xuquuqna runtii ku lahayn golaha ama cod ha noqoto ama arrin kale runtii golaha ay xubin ku leedahay in laga dhaafo xaq bay u leedahay runtii dowlado badan oo runtii kuwa gobolka iyo kuwa caalamka ah runtii dooda taageeray laakiin markii dambe runtii waxay noqotay cidii dayo runtii badan in wejido ka soo horjeestay shalayto waxaan u maleynayaa waqti ugu dambeeyay gelinka dambe oo dhan waxa runtii golaha ka socday dowladda Soomaalida marka laakiin hadda waxa horumar aanu ka gaarnay waxa weeyaan in markii ugu horeysay ay IMO garawsato inay Soomaaliya bal horta deyn iyo waxay ku noqotay waxaan lagu leeyahay in horta loo ogolaado inay codeyso waxaan muddada runtii ay ka maqnay dowladda Soomaaliyeed maalinta Jimcaha ah dowladda Soomaaliyeed xaq u yeelanaysa inay codeyso oo loo ogolaado golaha dhan isku raacay in maalinta Jimcaha marka dowladaha xubnaha ka ay codeynayaan in ay si buuxda dowladda Soomaaliyeed way arinta ku saabsan xuquuqdii 18 sano oo Soomaaliya ay lahayd marka aan laga eegin dhinaca deynta lagu leeyahay deyntu waa lacag tiro badan oo dowladdan ay ku adag tahay qof walba oo dareemi kara inay bixiso xuquuqda iyada maxaa laga yeelayaa ama sideed baa loo deynayaa taasi waxay noqonaysaa runtii xuquuqda badan misalan codeynta ka mid ah haddaan kulamadiiba ka soo gelin dee waa wax ku dhaafay oo cidina soo cilmaysan inaad kulamadii ku dhaafay soo codeyso waa xaq ku dhaafay weeyaan runtii sababta ku dhaafayna ay tahay inaad adigu waajibaadkaagii buuxin kar weyday runtii waxaa ka mid ah in tariirino badan iyo howlo badan runtii IMO-du ay u qabato dowladaha xubnaha ka ah taaqudheeda runtii way weydo dowladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed may helin runtii xuquuqda noocaas waayahay marka haddii la ogolaaday inay dowladdu codeyso wakiil joogtaan ay ka noqoto shirka maxaa xiga faa'iidada xigta maxay tahay wallahi faa'iidada xigta waxa weeyaan horta imika maadaama runtii la isku raacay oo ayada dhinaceeda kale la isku raacay lacagtaas ay dowladda Soomaaliyeed ka hadlayso in kulanka dambe laga doodo oo go'aan laga qaato ma laga doodo maahe
kulanka dambe in go-aan lagaga qaato oo waxaa jira wax la yidhahdo council baa la dooranaya imika oo kaajimca la dooranaya oo matelaya markaa talada IMO-da marka waxay noqonaysaa oo goluhu uu yidhi ha lagaga doodo councilka ama guddigaas ha ka doodo oo go-aan ha ka qaato go-aan ha ka qaateen arrintan in lacagta laga dhaafo dowladda Soomaaliyeed laakiin xaq ha loo siiyo in ay dowladda Soomaaliyeed golaha ka codeyso maalinta Jimcaha marka anigu runtii waxa baan qabnaa de imika in iskaba bixin karo runtii haddii alla ka dhigo waayahay marka laga tago arrinta shirka iyo arrintan aada soo hoyseen guusheeda la xiriirta in Soomaaliya ay codeyso oo ay xuquuq yeelato markii aynu ka tagno dowlado kala duwan oo wax wada qabsi Soomaaliya uu ka dhaxeeyo shirka ka qayb galaya wasiiradooda ay joogaan gaar ahaan wasiirada dekedaha iyo gaadiidka badda ciidaad is aragteen ama si gaar uga wada hadasheen arrimaha la xiriira Soomaaliya sidii looga caawin lahaa inay dib u dhisato dekedeedii iyo arrimaha gaadiidka badda waanu is aragnay runtii in badan oo ka mid ah waayo 2 maalmood oo runtii ugu horeeyay shirka waxaanu ugu jiray olole inaanu cid walba aragno oo aanu ka dhaadhicino runtii arrinta ama qadiyadda dowladda Soomaalida ee golaha IMO-da dabeetana si loogu taageero runtii mowqifka ama ajendaha aan wadanay waana runtii wax badan naga tartay waxaan la kulanay runtii inta badan wufuudda dowladaha Afrikaanka kuwa jaamacadda Carabta kuwa dunida Islaamka iyo kuwa kale runtii caalamka kamid oo dowladda Soomaaliyeed saaxiib la ah intaba runtii waxaanu kala kulanay oo kala hadalay arrinta dowladda Soomaaliyeed sidii ay golahan ugu soo noqon lahayd oo xuquuqdeedii kaamil dib uga hanan lahayd in deynta runtii faraha badan laga dhaafo waana runtii garawshinyaha weyn runtii golaha runtii ka muuqatay waxaan aad iyo aad runtii u bogaadinaya dowladaha Afrikaanka badankoodu inay qaateen mowqif wanaagsan oo ay dowladda Soomaaliyeed isku bartaagayaan iyo dalabkeeda dowladda asxaabaha runtii kalena ay door weyn ka qaateen adduunyadana runtii in ay laba u kala jabtay oo qolada hada Soomaalida lagu adkeeyo qolada Soomaalida laga dabciyo runtii way lahayn labadaba insha Allah galo waayahay markii aad noo dul marto arrimaha shirka waxaan jeclahay inaan ka gudubno wax qabadka wasaaradda aan galno muddada aad xilka haysay waxyaabaha kale oo caalamiga maxaa kamid ah hal iyo laba oo sanadkan shirka marka arrinta Soomaaliya aad ka hadashay laga soo tago looga hadlay wallahi waxa ugu badan ee laga hadlay waxa weeyaan adduunyada dadka badaha leh ama dowladaha badaha leh inay danahooda badaha ku ilaashadaan waxa laga hadlayaa horumarka runtii badahaas ama gaadiid badeed ha noqoto ama deked ha noqoto ama ha noqoto amniga biyaha dowlad kasta inay ilaashato in ha noqoto in laga hortago mesela waxa la yiraahdo burcad badeeda ha noqoto mowduucyada ugu waaweyn laga wada hadlay runtii waxa kamid ah mowduuc oranaya nadaafadda badaha iyo biyaha in la ilaaliyo oo runtii Soomaalida ama dowladda Soomaaliyeed maanta dhibaatooyinka inaga haysta ugu waaweyn ay kamid tahay in badda Soomaaliyeed loo tuumayo inay tahay meelaha ugu daran ama qashin ama waxa weeyaan lagu shubay runtii inay badan tahay marka adduunyadu waxay ka doodaysaa oo aad runtii looga hadlay shirka sidii baduhu ay noqon lahaayeen bi'ad nadiifa oo waxa weeyaan la ilaaliyo deegaanka badaha runtii nadaafadooda amnigooda runtii la ilaaliyo barnaamijku waa falanqaynta SNTV oo idinkaga imaanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada London waxaa marti inoogu ah barnaamijka naga qayb galaya sidaad wada arkaysaan wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Nuur Faarax Xirsi oo shir caalami ah halkan u yimid isla markaana studio aan ku marti qaadnay si bulshada ula wadaago waxyaabaha shirkaasi looga hadlay gaar ahaan arrimaha Soomaaliya wasiir sanadkan si dhamaanaya horaantiisi ayaa la idin magacaabay xukuumadda hadda dalka ka jirta oo aad wasiirka ka tahay sanad baa hadda idin dhamaanaya bisha February waxaan jeclahay bisha February in ahayd markii aad xilalka la wareegteen maxaa ku qabsoomay inta aad wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda aad joogtay runtii marka laga hadlayo wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda muddo sanad ku dhow ayaan hadda joogay sidaas sheegtay laakiin marka laga hadlayo horumar laga gaaro horumarka laga gaari karo dekedo iyo gaadiid badeed iyo sanad waxaad moodaa inay aad u kala dogsiin si wanaagsan waxqabadka runtii aanu markii anigu aan wasaaradda imi wixii ugu horeysay ee aan
runtii ama qorshihii aan sameeyey ayaan doonay inaan kaa tilmaamo. qorshaha waxa ugu badnayd marka laga hadlayo wasaaradda waxay mas-uul ka tahay oo ay ummadda Soomaaliyeed mas-uul ka tahay badaha. dabeetana markaasay mas-uuliyaddaasi sii qaybsamaysaa. si wanaagsan. wasaaradda markaan imi waxa runtii markii aan qiimeeyey dadka runtii wasaaradda ka shaqeynaya wixii ugu horeeyay ee ii muuqday waxay noqotay in dhibaatada ugu weyn ee wasaaraddaasi la kulmaysa ay laba mid tahay ama hortaagan ama mashaakil ku ah howlaheeda. marka koowaad Soomaalida ama dowladda Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed bad aad u ballaaran bay leedahay sidaad ogtahay. marka waxa khasab ahayd ama lagama maarmaan ahayd in ay badda aqoon u leedahay dadka Soomaaliyeed oo aan u jeedo wasaaraddaasi waxay u baahnayd dad kaadira ama dad aqoon u leh culumta badda oo dhinac kastaba leh ama sharci ha noqoto ama waxa weeyaan dhinaca doonto ha noqotee dad aqoon fiican u leh oo hanan kara howlaha dekedaha iyo runtii badaha iyo runtii waxay laakiin u muuqatay inaanay wasaaraddu runtii dad noocaas haysan. waayo dadkii hore waan soo socdaa waayo dadkii hore u tababaraa runtii waxay noqdeen dad gaboobay iyo dad iska tegay iyo dad dhintay ay runtii u badan yihiin. marka waxaan ku dadaalay in la helo tababar degdega loo furo runtii dadka wasaaradda ka shaqeeya ama howlaheeda ku howlan wax weyn baa nooga qabsoomay. dad inta badan dad aad imika u tiro badan oo macquula oo runtii soo dhamaystay tababaro waaweyn oo muhiima ama si joogta u qaata ayaan runtii si wanaagsan ayaan runtii imika ku guuleysanay. inta badanna annagoo xiriir fiican la leeyahay hay'adda IMO inkastoo caqabadkan ka warramaya ayna hortaagan yihiin waxaanu si buuxda uga qayb galinay wasaaradda dadka ka shaqeeya tababarada loo sameeyo ama wixii training loo sameeyo hay'adda IMO ay sameyso dhammaantood inay ka qayb galaan oo runtii meel fiican imika dad runtii fahamkooda iyo tayadooda runtii ay fiican tahay imika ay lagu tilmaami karo imika runtii waxyaabaha ka mid tahay. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah dekeduhu runtii marka laga hadlayo maaha waa infrastructure-ka ama waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ugu culus weeyaan. si wanaagsan. waxay ku xidhan tahay wax badani in wax laga qabto horumar weyn laga sameeyo waxay ku xidhan tahay wadciga siyaasiga ee waddanku marayo ama xaaladda siyaasiga waddanku ku jiro xaaladda nabadgelyada iyo amnigu hadba sida ay tahay. waayo guri in la dhiso iyo in warshad yar la dhisaa runtii way fududahay laakiin deked in la dhisaa wax fudud maaha dhaqaalaha gelayaana runtii ama lagu maalgelinaya wax aad u culus. waayahay xaaladda dekedaha baan wax ka weydiin doonaa iyo gaadiidkii badda Soomaaliya ay lahayd. haddii aan ku hormarno dekedaha dekeda weyn ee magaalada Muqdisho xilka aad la wareegaysay kolley hawsheeda way socotay. waxaa jira shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo gacanta ku haysay heshiiskii la ansixiyey wasaaraddii ka horreysay ee gacanta ku haysay baarlamaankuna markii dambe la geeyay waxaa ka mid ahayd dhismaha iyo horumarinta ama casriyeynta dekeda magaalada. maxaa ka qabsooma muddo sanad ayaa la joogaa. runtii waa runta anigu markaan imi waxaa dekeda Muqdisho gacanta ku haysay shirkadda Albayrak la yiraahdo Turkiga laga leeyahay oo ay shuraaka ku yihiin dowladda Soomaaliyeed iyo shirkadda Turkiga oo ay ku gaareen qandaraas ama contract labadooda dhex maray runtii ay ku gaareen. contractgaasi runtii wuxuu sheegayaa waxyaabo badan. dakhliga ka soo baxaa dekeda in 50% oo aan kharash laga jarin inay dowladda Soomaaliyeed qaadato 40% shirkadda oo kharashku ku jira ay shirkaddu qaadato. si fiican buu runtii u socdaa. 20 sano ayaa runtii contract uu sheegaya inay dekeda gacanta ku haynaysaa hay'addaasi ama shirkaddaasi. 20 sano waxa uu sheegayaa heshiisku in maalgelin culus ay shirkaddaasi gelinayso dekeda horumar badan u samayn doonto. si wanaagsan. laakiin hadda 12 bilood baa u dhamaaday heshiiskaas bishii ina soo dhaaftay 12 biloodna runtii heshiisku wuxuu dhigayo horumarka laga sameynayo dekeda weli inaanay la gaarin. waayo horta bal qabso inay meeshii hantaan oo markaa ay si fiican adeeg fiican ka sameeyaan ayaaba ugu horeysa sanadka ugu horeeya. maalgelintana sida ay u sameynayaan waa si qandaraasku uu sheegayo oo cadaynayo oo waqti iyo meel leh.
marka sanadka hore kuma jirin runtii heshiis kuma sheegayn waxyaaba waaweyn oo ay qabanayaan, waayo maadaama heshiisyada noocaasa sanadka hore wax weyn lama qaban karayo, laakiin meeshii inay maamulaan oo isku dubaridaan ma runtii marka waayahay dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo dekeda muqdisho markii laga tagana dekeda waaweyn Soomaaliya ay leedahay ayaa jira siyaasadda dekadaha ka waran maadaama maamulo ay gacanta ku hayaan dhinaca dawladana kulli waxaa jira maamul goboleedyada waxyaabo ka hadlaya oo sharcigu dhigayo in arrimaha dekadaha kale ay dawladda dhexe xaq u leedahay inay maamusho siyaasadda dekadaha kale ka waran ee maamul goboleedyada gacanta haday ku hayaan horta runtii waxa dhab ah sidaan dhowr goor hore sheegay dekeduhu siyaasadda dawladda horta marka la eegayo waxay ka mid yihiin 4 dekedood oo muhiim ah ku yaala Soomaaliya oo laga dhaxlay dawladdii hore Soomaaliyeed ama dawladihii hore Soomaaliyeed horta marka koowaad dekedahaasi waa hanti qaran weeyaan, waa hanti ay ummadda Soomaaliyeed leedahay, reer gaar u dhistay iyo maamul gaar u dhistay iyo mid meel kale ka keenay toona midna ma jiro. si wanaagsan maadaama ay sidaa tahay haddana marka labaad dekeduhu waxay ka mid yihiin meelaha amniga qaranka ugu xasaasisan ummad kasta. sidaa markay tahay haddana waxa meesha ku jira sida xaalka siyaasiga ee Soomaaliyeed uu noqday dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay baa meesha ku jirta oo iyaduna meesha taala oo ah in maamulo gaar ah oo qaarba waxay doonaan sheegdaan inay runtii hadda waddanka ka jiraan oo 20 sano ugu dambeeyay ka jiraan intii dambe ka soo keenay si wanaagsan waxa qura runtii qiimaha waxa weeyaan dekedahaasi muddada dhowr iyo 20 sano ah ee waddanku galay fowdada iyo dagaalka sokeeye waxay horta intooda badan way shaqeynayeen ama way shaqeynayeen mar walba way shaqeynayeen, taas waa arrin wanaagsan. midda kale intaas oo dhan waxay ku jireen gacmaha Soomaaliyeed, gacmaha Soomaaliyeed ciday doonaan ma noqdaan. hadda anagu wasaarad ahaan siyaasaddeedu waxa weeyaan maadaama inta ay ku soo jireen inta colaadda jirtay ay shaqeynayeen isla markaana ay ku jireen gacanta ummadda Soomaaliyeed siday doonaan ba ku jiraan, hatta gacan reer ku jiraan ama qoys ku jiraan si wanaagsan still hantidii ummadda Soomaaliyeed way shaqeynaysaa waxayna ku jirtaa gacan Soomaaliyeed waxaanu markaa anagu waxa weeyaan in sidii lagu hayo oo lagu ilaaliyo ilaa inta waddanku isbedelka xaalad siyaasadeed oo isbedel ay ka imanayso sidii aan ugu nimi in lagu ilaaliyo. waaya arrinta tababarada iyo horumarka iyo casriyeynta dekadaha waxaad moodaa wasaaraddu inay aada xooga u saartay dekada weyne magaalada Muqdisho dawladda ku shaqeysa siyaasadda uga degsan ka waran wasaaradaadu in loo qaybiyo dekadaha Boosaaso Berbera meesha la yiraahdo dekada Kismaayo in dekadaha waddanka oo dhan in wasaaradaadu muu jirtaa siyaasad u degsan in horumarka ay ka wada qayb qaataan ama la wada geeyo taasi raalli ah waxaan u maleynayaa inaad qiyaas madaxaaga ay ku jirtaa tahay, laakiin midaan sheegayna ma aha mid meesha taalana ma aha dekadaha Soomaaliyeed dhammaantood wasaaradda waxay isugu yihiin mid ta Muqdisho iyo ta Boosaaso iyo ta Berbera iyo ta Kismaayo siyaasadda wasaaradda way isugu mid wax alaale wax ku kala duwan ma jirto. waxaanu ka shaqeynaynaa wax kasta oo horumara oo aan dekadaha kaga shaqeynayno dhinaca doonta ma noqotee waxaanu ku dadaalaynaa runtii inay u sinaadaan oo dekadaan odhanayno adiga tan galmudug ba haysataa ama tan waxaan tan Puntland ba haysataa tan Jubbaland ba haysataa Somaliland ba haysataa ma jirto. mid walba anagu waxaan u garanaynaa oo aqoonsanaynaa dekad Soomaaliyeed oo hanti Soomaaliyeed oo mudan in la ilaaliyo oo mudan in la hormariyo. waayahay wasaaradaadu muu degsantaa siyaasadii gacanta dawladda lagula soo celin lahaa waxaas oo loo dejin lahaa siyaasad wada maamusha oo dawladda dhexe maadaama ay tahay cidda gacanta inay ku hayso oo sharcigu u ogol yahay inay tahay dawladda arrintaas shaqadeeda ma socotaa. arrintaas waxa weeyaan runtii arrin aad u ballaaran waad ogtahay siyaasadda Soomaaliya maanta xaalkeedu siduu yahay waxaanay ku dhammaan doontaa ku gabagaboobi doontaa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliyeed meesha ay ku biyashubtaan ay ku gabagaboobaan ayuu ku biyashubaan doonaan, laakiin annaga hadda waxaana saaran dekad walba meesha ay tahay iyo sida ay tahay xaalkeedu imika inuu ahaado oo aan halkaa ka bixin. waayahay wasaaradda dekadaha xilka dambe oo ku raacsan waxa weeye wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda markaan ka hadlaynana Soomaaliya gaadiid badan oo badda ay lahayd hadda waxaa laga yaabaa qof kastoo Soomaaliya markuu uu maqlo xilkaaga inuu isweydiiyo gaadiidka badda ee Soomaaliya maxaad uga sheegi kartaa dadka Soomaaliyeed? waxaan uga sheegi karayaa wax cad wasaaradda markii lagu wareejiyay bishii February ayna dhaaftay sanadkan hawa yaraatay uguma iman wax gaadiid badeed oo ay haysato sida lagu heli lahaa gaadiidka badeeda Soomaaliyeedna wuxuu u eegyahay
oo runtii hubaala inuu galbaday wixii oo aan imika cidina gacan ku hayn cidina helin waayo in badan baa la isku mashquuliyay runtii gaadiidka wax laga soo celiyo laakiin waxay ku dhamaatay wax dekada cadmeed runtii ku gabagaboway hawl badan iyo arrimo badan runtii runtii dowladda Soomaaliyeed ay ka gashay laakiin natiijo aan laga gaarin runtii malmuus ama la taaban karo anigu markii runtii maadaama aan hal markabna lagu wareejin hal doona lagu wareejin xaaladda haddii aad warbixin ka sii karto way fiicnaale dadka ku daawanaya xaaladda maraakiibtaas aad soo hadal qaaday oo xilligii dowladda ku meel gaarka ahayd ilaa hadda socotay oo cadan la sheegay markii dambe inay qaar degeen qaar dhibaato ay soo gaartay qaar lacag madax furashaa loo haysto runtii anigu waxaan u malaynayaa waxa iiga xogaalsan mas-uuliyiintii hore ee wasaaradda oo waqtigii ay hawshooda socotay runtii joogay baa iiga xogaalsan waayo waxay noqotay waqti xataa loo yaro la isu qabsaday oo runtii hawl badan ay ka dhacday baa jirtay laakiin gabagabadu waxay noqotay inaan markab Soomaaliyeedna cadan laga keenin ama wax ka soo noqdo runtii aan la keenin bay runtii saas si wanaagsan waa gartay hadda mar waad soo hadal qaadatay waxaan rabaa inaan ku sii weydiiyo arrinta ku saabsan in la helo si loo hormariyo dekadaha iyo in shaqaale u qalma wasaaradda haddii tababaradii wixii degdega aad sameyseen xagee bay wax idin marayaan hadda meel fiican bay noo marayaan marka la doonayo in dad aqoon u leh loo train gareeyo runtii wax la baro way kala duwanaanaysaa qaar train dhowr bilood aad geynaysaa qaar train waxa weeyaan ka dheer baad helaysaa qaar jaamacad baad u raadinaysaa hadda intii aan joogay runtii wasaaradda waxaan furay xiriirkii aan ula lahayn jaamacad baa jirta ay leedahay hay'adan IMO aan ku sheegayo oo adduunyada dhan ka dhaxaysa oo lagu barto culumta badda iyo waxyaabihii la xiriiro dhan lagu barto oo runtii baahi weyn u qabno nasiib daro dad badan oo Soomaaliyeed ama nasiib wanaag ay doonto ma noqotay ayaa jaamacadda galay qaarkood way ku guuleysteen oo way ka baxeen laakiin imika intoodii badnayd ma hayno oo meel jiraan iyo meel joogaan ma aanan helin qaarkood waxay ahaayeen dad aan markii hore si qiimo leh ama si macquul ah loogu dirin oo dad aan waxbarashadooda wanaagsaneyn ama background waxbarashadooda jaamacadda waxa laga qaataa oo master iyo wixii ka sareeya marka yani dadka la geynayo ee ay dowladda geysanaysaa waa inay yihiin dad aada u dhisan oo runtii u qalma inay meesha wax ka bartaan waxoogaa intii fawdada halkaa khalkhal baa galay laakiin hadda waxaanu isla garanay jaamacadda waan wada fadhiisanay xataa imika kulankan waanu isku aragnay intii horena xiriir baanu lahayn waxaanu isla garanay in xataa mar sanadkiiba koota yar bay dowladdu leedahay ay dowlad kastaaba leedahay xubin masalan 2 kursi bay leedahay marka waxaanu xataa codsanay maadaama anagu aanu muddo badan ka maqnayn inaan ka faa'iideysan hadda in si gaarna loo eego way aqbaleen runtii aadna way soo dhaweeyeen imikana labadii qof ugu horeeyay ayay sanadkan aqbaleen oo runtii markii aanu isla garanay imtixaanaadkii wixii ay mariyeen annaguna aanu ku taageeray in dad u qalma la geeyo runtii ay imika tegay haddii halka dhigo waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan ku dhownahay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo caawa dhan su-aalo baan ku weydiinaya arrimaha waxqabadka wasaaraddaada ku saabsan haddii aad muddo sanadana way idin dhammaan rabtaa waxyaabo badan hadda waa qabatay si aad ka hadlaysay markii aad xilkan ka tagto ama lagaa bedelo maxaad jeceshaa inaad uga tagto wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda wallahi waa su-aal wanaagsan weeyaan horta waqti kasta inaan ka tago waan filayaa runtii intii aan joogayana runtii dee waxaan imika garanaya maaha marka ma odhan karo waxaas iyo waxaasaan qabanaya laakiin mid baan runtii ugu muhiimsan waxaan doonayna kaga tago meesha dekadaha sidaad maqashay ama wasaaradda waa meesha ugu badan ee dowladda dakhliga soo gelisa si wanaagsan dakhli dowladda meesha ugu badan ee ka soo gala waa dekada maanta si wanaagsan waxaan jeclahay aniga oo nadiifa inaan ka baxo wasaaradda si wanaagsan oo aan ula jeedo maadaama aan meeshii runtii wax ka soo baxayeen fadhiyo si wanaagsan anigan leexaman inaan ka tagaan jeclay runtii waata ugu weyn aan doonayo runtii oo aan dhinaca waxqabadkana maxaad dhinaca waxqabadka waatan ka cudur daartay runtii sanad dekado iyo qorshaheeda in lagu dejiyay iyo runtii in lagu fuliyaa suurtagal maaha iminka dadkaan loo bilownay maalintii aan imi wada hadal dekado in la dhiso ilaa imika waan ku jiraa waayo waxay u baahan tahay wakti ku filan oo dadkaasi ay kaga fikiraan oo ku daraaseeyaan oo ay kaga baarandegaan
laakiin waxaan jeclahay anigu runtii maalintii aan imid wasaaradda waxaan idhi itaal wuxuu doonaba ha noqdee waxaan daacad ka hay badda Soomaaliyeed oo dheer waxaan jeclahay anigu inaan meel walba deked bal haba yaraata ama haweenata ka taago laakiin duruufuhuna way jiraan waxaan jeclaan lahaa inaan wax la taaban karo oo runtii waliba xagga dekeda inaan kaga tago ayaan jeclaan lahaa haddana wada hadallo fiican iyo runtii qorshayaal fiican baa noo waayahay dadweynaha Soomaaliyeed ayaan jeclahay daqiiqadaha ugu dambaysa inaan fursad siiyo daawada ay hadda khadka ku jira halow daawade عليكم السلام magacaaga meesha ka soo hadlayso magacaygu waa wada London xagee ka soo hadlaysaa London haye wasiirka haddii aad talo ama su-aal u hayso soo dhawow haddii aad la socoto barnaamijka horta aad aan salaamay wasiirku waa soo dhaweynaynaa London hadaan welcome aan ku leenahay London salaamay wasiirku ugu horeeya kada oo ka yimaada oo malaynayaa wasiirka su-aalaan weydiin lahaa waxay tahay maadaama wasiirkiisa kalaha uu yahay sidii mataqaana maraakiibteeni iyo wixii maaragtaan Soomaaliya xaq u leheen ma soo celiyey oo ma la bilaabay midda kale haddii la soo celiyo siyada kale dadka kale oo maraakiibta kale oo sida mataqaana sharci darrada ee ku marta biyaha Soomaaliya ma ka joojin karaa oo qaas ma laga wada hadlay inta kale hal sana u hartay halka sana macnaha wixii u qabsoomay wasiir waayahay wasiir waan maqlayaa aad baad wala horta mahadsantahay aniguna waan ku salaamayaa sidaas oo kale waan kusoo dhaweynayaa arrinta runtii ku saabsan maraakiibta watan had jeer ka hadlayay oo waxa weeyaan waa mawduuc runtii qorshe lagu soo celinayo ma jiraayo qorshe lagu soo celinayo runtii waxaan ku qorshayaasha dawladii waxaan wasaaradii naga horeeyay ba galay ama dadkii ugu horeeyay wasiiradaha ba galay haddana waxa runtii meel aan anigu imika oran karo halka ayaan ka soo celinaya ama kaasaan soo celinaya runtii ma garan karo ballanta ma qaadi karo waayo beentu ma wanaagsana runtii hadalka wanaagsan runta fiican mid danba laakiin jirtay runtii ay inantu taabato warbadii Soomaaliyeed waa la iska soo gelaya wasaaraduna waxay mas'uul ka tahay biyaha Soomaaliyeed oo dhan bay mas'uul ka tahay maxaa ka qorsha sidan sheegay waxay ahayd markii ugu horeysay aan wasaaradda wixii ugu horeysay aan idhi wasaaraddan waxay u baahan tahay maadaama ay mas'uul ka tahay biyihii Soomaaliyeed haddii aanan ogeyn waxa xamar weyne ka dhacaya ama ka dhacaya warsha si wanaagsan mas'uuliyadda lama gudan karo si wanaagsan marka waxay u baahan tahay in loo helo system ama nidaam lagu waardiyeeyo oo maanta casri ah runtii adduunyada jira waxaan ka sheegayaa halkan in aanu heshiis buuxa ka galay laba qolo in aanu ka qaadano runtii qalabkii badda Soomaaliyeed oo dhan lagu ilaalin lahaa si wanaagsan waana insha Allah dhawaan insha Allah taa waa la dhaqan doona waayahay daawado kale ayaa khadka ku jira halow daawade magacaaga meeshaad nagala soo hadlayso cabdi fataax haddii aad la socotay barnaamijka gabagabana waa ku dhownahay adigoo soo koobaya su-aal ama fikir wasiirka maxaad doonaysaa inaad weydiiso had su'aal ayaan rabaa inaan weydiiyo way dhici kartaa inuu hore uga jawaabo laakiin barnaamijka gadaal aan kala soo qabsaday wasiirkii dowladda federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay oo dekedaha iyo gaadiidku maraakiibta Puntland loo yacantay oo imaanayeen wasiirku waxaa rabaa inaan weydiiyo dekeda boosaaso maxuu ku leeyahay oo tala ah waxaan ognahay wasiiradu badanaa haddii amni tahay haddii waayahay iyo amaradooda iyo hawshooda ma dhafto marka waxaan rabay maxay ku leeyahay amro ama tala ah maadaama wasiirkii guud ee federaalka uu yahay waa fahmnay su-aashaas horena waa u weydiinay wasiirku uu ka jawaabay haddii aad wax ku darayso haddana waan ku celinayaa runtu waxa weeyaan marka laga hadlayo dekedaha Soomaaliyeed ee meelo kala duwan ku yaalo Soomaaliya kamid ah kama baxsana xaaladda siyaasadeed ee maanta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ku jirto waan jeclaan lahaa runtii inuu isbedel ka yimaado si wanaagsan laakiin waxay ku xidhan tahay isbedel laga filo dekedahaas in isbedel ka yimaado xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya way aad iyo aad baad mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal barnaamijkii falanqaynta inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa oo halkaan nala fadhiyay sidaad wada daawanayseen wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Nuur Faarax Xirsi oo howlo shaqo u yimid magaalada London ee xarunta wadanka Ingiriiska wasiirka si aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa in uu naga ogolaaday isagoo shaqo iyo shirar ay u taalo in uu dadweynaha Soomaaliyeed la wadaago waxyaabihii uu qabsoomay iyo shirkii uu halkaan u yimid
dhammaantaynu isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wa salaamullaahi calaykum waraxmatullah aad baa umahadsantahay mudan wasiir aad baa umahadsantahay